Dream Team Somalië, speciaal geselecteerd team van het AFT-toernooi. Vandaag is 21 december de eerste dag tegen Marokko. En we zullen zien wie er gaat winnen. Het wordt een spannende wedstrijd. Marokko is toch wel een van de beste in Europa, al dan niet Afrika. Niet iedereen van de beste spelers van Marokko is erbij. Maar we hebben wel de beste spelers van Somalië geselecteerd. Dus daar gaan we. That's the national Somalian anthem that's been played. It's maybe also a bit to provoke Morocco with their flag. They're teaming up. As you can see, everybody's so excited. And the tension is building up. The energy is already quite high in the game.
And that's the first point for Morocco. Energy level is very high. Geselecteerd is samen met Samir El Helwa. Spreek je dat goed uit, Samir? El Hawal, ja. Hoe zie je de wedstrijd tot nog toe? Want het staat 3-0 voor Marokko. En de Somaliërs, of het dreamteam van Somalië, die probeert hard te verdedigen. En zo nu en dan missen ze er eentje, maar ze schieten toch wel op het doel. Hoe zie jij deze wedstrijd? Ja, zoals dat ik eerder heb gezegd, het is voor ons een goede voorbereiding. We staan wel 3-0 voor, maar ik heb ook de jongens de opdracht gegeven om hun ook wat te amuseren en zo nu. Want morgen spelen we dan tegen een selectie van Somalië, dan is het een ander kaliber. Dan gaan we er wel een beetje serieuzer tegenaan gaan. Ik ben Mokhtar Abdelkader, dus voorzitter van de Marokkaanse selectie en van de Afrikaanse Confederatie van Zaalvoetbal, AMF. Het voetballen geen kleur kent, alleen teams en landen van herkomst die soms een team bepalen. En that's it. Dat is heel juist. Wat sport betreft, er zijn helemaal geen grenzen. Dat is een sport zonder grenzen, manier van spreken. Maar je gaat zeggen bijvoorbeeld, sport bindt de mensen aan. Dus je mag van welke land eender zijn. De belangrijkste, als ze op het terrein zijn, ze houden van hetzelfde sport. Dus ze doen samen mee en ze hebben plezier samen. Dat heeft niks mee te maken met kleur of grenzen. Nou, we gaan nog even verder naar deze wedstrijd kijken. Het is 1-5 voor Marokko inmiddels. Ze hebben het heel erg goed gedaan. Ik weet niet of Somalië dit nog gaat inhalen. Tenminste, het team wat vandaag geselecteerd is. Maar we gaan nog even verder kijken. Wie weet. Dank u wel. Zonder dank, het was een groot plezier. Shukran. Nou. Maar even verder kijken wie we nog meer kunnen spreken. Wellicht iemand van het publiek. Ik ga even kijken of ik de coördinator van het event te pakken kan krijgen. Volgens mij is die er niet. Ik ben op zoek naar de coördinator. Er zijn heel veel mensen die willen eigenlijk wat zeggen over deze spannende wedstrijd. Even kijken, Abdinoor. Ik ben op zoek naar Abdinoor. Abdinoor? Daar zijn we naar op zoek. De coördinator van het event. En de wedstrijd is afgelopen. 5-1 voor Marokko. gudoomiye tarsan marka hore waxaan kugu soo dhaweynayaa Amsterdam marka xigana waxaan kugu soo dhaweynayaa kaamirada Hirda waxaadna ka soo qayb gashay barnaamijka sanadlaha ah ee Hirda ay qaban qaabiso adigoo markaa ku soo aaday sanad guuradiisii 10aad marka dareenkaaga ku aadan ka soo qaybgalka barnaamijkan aad iyo aad bay farxad weyn igu tahay intaasoo dhalinyaro ah inuu ururka Hirda isugu keeno wadamada reer Yurub oo dhan dhalinyaradan oo isaqooni jinsiyada kala duwan ee European wata inay hal jinsiyad isugu yimaadaan waa jinsiyada Soomaaliyeed inay magaca Soomaalida difaacayaan magaca Soomaalidana ay ku wada ciyaarahayaan aad baan arrintan u jeclaystay waxaan rajaynayaa wadankana in sidaas oo kale looga daydo gobolada sida halkan looga sameeyo dhan gobolada in sidaas la isugu geeyo in dhalinyarada gobolada jooga in ay isdhex galaan oo ciyaarahan la dhex dhigo inay example laga qaatay ku fiican tahay arrintan faraxsanahay waxa inta lagu maalmaha nagala qayb qaadan farxadiina yuudka dhalinyarada Soomaaliyeed aad iyo aad ugu faraxsanahay banoonigu waa waxa kali loogu tagi karo qabyaalada hal isku soo dhawaado waa kordhis caafimaad ah waana wax najiito ku jirto qof walba Soomaali ahna intuu qabyaalada ka fogaado qabyaaladu saaxiibka qabiilku ma la baranay aabaha hooyada qabiilku ma guursanin asxaabta qabiilku ma darisku ma la noqonin dariska sidoo kale markii ilaa qabiil daba socdo waa qalad sabahan Soomaaliya waayahay waxa qaadayna hal mar adinko raali ah heesta calanka Soomaaliya qof walba ha u istaago adinko raali ah waana wada qaadayna dhamaanteen dad badan ha u istaagaan Somaliye tosoy isku
tiirsanaye halbakiina taagarane taageera weligiine Soomaaliya tooso isku tiirsanaye halbakiina taagarane taageera weligiine Somalia Allah يعزك هذا ما شكيت ما thank you. Our team called Amma. We're from Denmark, Copenhagen. This is our best player, Kadia from London. The coach, Abdul Hassan, Mikael, Mugi, Abdul Kadia, Musa, Blue, the assist coach, and Jafar. And we're going to win tomorrow, inshallah. 1, 2, 3, Sire! Yeah, my name is Shabalala and we are from Sweden. And I play with Sam United team. And we play like 2 games and we win 1 and we draw 1. So it's going good for us. It's really good, yeah. My name is Awes Ali Winke. I'm from Norway in team. So my team is called Vest Agdar, Kristiansand. We are very glad this tournament. I think it's the first time because my boys, they are very young and we hope they will play very good. We have played already 1 game and it was 1-1 and now we are playing the next match. So I hope that we will win. dhinacayga midig taagan dhinacayga bidix taagan Mr. Gobdon oo ka yimid wadanka Switzerland asiga ayaan ku soo dhaweynayaa marka ugu horeysa Mr. Gobdon soo dhow وما سنتها ولا الألبان وما سنتها سودوينتا إبراهيم كان سيدا توسكا وصعدا هل كان كلن كلا هردا ما مركي نجور هل كان نمادو أدونا ريال سويسرلاند وحنوتا ملكدي أفراد هل كان نمادو وحنا برنامج كدون برنامج هذا كله ما عيارك لي هل كان ولا يرى سماعة يكون كلنتا يكون أفسدان أراد كل الدول وحنا أدلو حجية dhaqankii afka Soomaalida waxaad arkaysaa kooxaha dheelaya oo qaarkood markay ninka albitraha ama garsooraha ay isfahmi waayaan u kala tarjuma ayuu ku hadlay afka Soomaaliga marka waxyaalo lagu dhiiri karo oo af Soomaaliga ayaa la xoojinaya waxaan aad ugu mahadnaqaynaa Hirda howlaha ay qabatay iyo muddo 10 sano oo jirto waa arrin dheelama waa arrin xoog badan la geliyay annagana waxaan ugu qasbaysaa inaan goob joog ka ahaano waxaan ka mid nahay familiga Hirda maadaama 4 sano halkan imaanayna سعيد markii kuugu horeysay baa oo aad ka soo qayb gasho hadaysan ahayn oo dhowr qaybood aad ka soo qayb gashay maxaa farqi u dhaxeeya aniga shakhsiyan markii ugu horeysay aan ka soo qayb galo kooxda aan maanta la socdo Olympic ama Denmark oo ah urur ka jira Copenhagen Denmark dhowr goor bay yimaadeen sanadadii horena finalkan u nimid marka Denmark ahaan kuma cusbin laakiin aniga shakhsiyan oo markii ugu horeysay reer sport baan ahaan jiray Hirda iyo tournamentyadii hore ay qaban jirtayna waan ka soo qayb gali jiray kuwii lagu qaban jiray Stockholm iyo Finland marka sport oo xiisaan u qabo sport awgeedna waan u imid أحمد waxaad tihiin ciyaaryahanno talent leh aad u yar mustaqbal leh sidoo kale ciyaarihii aad soo bandhigteen inta badan waan wada daawanay ciyaartii ka horeysay Dambosh wacdar ayaad soo dhigteen meel fiican oo soo gaarteen waana sanadkii ugu horeeyay adigu marka ciyaaraha aanan ahayn oo bulshada kale ee Soomaalida intaan la eg ee wadamada kale ka kala socda aad la kulantay maxaad ka faa'iiday horta waxaan ka faa'iiday farxad in la isku dhawaansho oo dadka walaalahaaga oo kubadda dadka isku soo dhaweynayso dad badan aan barta akhyaar cusub aan barta asxaab cusub aan barta saaxiibo badan ay yeeshay insha Allah dadka markaas dadka soo socon dad badan waan soo dhaweeyeen reer Holland aad ay noo soo dhaweeyeen hadda akhyaar baawr noo imaado ciyaar markaan hotelka soo baxayno subax kasta 3 baawr noo imaanayso ciyaarahana keenayna cuntadeena waa nal qaabile lawada bari aan joognay aad ugu faraxsanaysaa maamulku dhaciyo guddiga refereega wax walba ciyaaraha iyo kooxaha aan la dheelayna akhyaarta u dheelaysa aad dad xushmo leh waayo 24 team oo ku ciyaarayo in the name of sports in Amsterdam waa qaali waxaan ka xumahay inay ku hareen 8 dhibcood 9 dhibcood inay Finland ku hartay oo discipline wanaagsan ahayd Stockholm Husby oo 2 points only ku hartay laakiin akhlaaqda oo ciyaartooyda very interesting
waa tahay daawadayaal iminka waxaan soo gaarnay gebagabadii barnaamijkeenii maalintii sabtiga ahayd ee shalayto inoo soo bilowday ayadoo maanta ay taagan yihiin labada koox ee fiinaalka ay kala yihiin kooxda ku ciyaaraysa magaca Riwak iyo sidoo kale Den Haag adigu waa xagee dhankay jirtaa mise Den Haag ayaa jirtaa aniga sida aad saadaaliso ani markaan qiimeeyo labada kooxda Riwak ila adag markaan fiiriyo iga adag dhinac walba markaan fiiriyay ciyaarahooda horena markaan fiirsaday laakiin waxaan waa kubad qolada kalena ma liidto laakiin waxaan leeyahay Riwak ayaa badan karta iga ayaa ku badanaya laakiin kooxda kaleba hadday ku xisaabtamaan kooxda inay adag tahay qaladaadkoodana ay iska ilaaliyaan ilaan marka og tahay kooxda inay adag tahay waa inay xisaabtanta jaanis inay siiyaan maaha fursadaha ay helaanna City haddoo kale inaysan cunin oo fursadahaas ay dhaliyaan haddii kale waxa weeye waa fursadda haddaa cunto kooxda kale fursaddeeda ma cunayso hadda Riwak waxaad moodaa cadaadis ayaa saaran weerarkoodana wuu yaraaday kooxda Den Haagna waxay isku dayaan in gooshooda aan laga soo agdhowaan walow gool lagu leeyahay sidoo kale saad u jeedaan waxaa ka soo qayb galay daawadayaal fara badan oo mas-uuliyiina ayaa ka soo qayb galay oo u horkacayo gudoomiyihii hore gobolka Banaadir Master Tarsan waxaa ka mid ah Dr. Fiqi waxaa kaloo ka mid ah lejana hore oo kubadda cagta iyo basketkaba soo ciyaaray dadyow fara badan oo magaaladan degan iyo qaar kale oo gobolada ka yimid waxaa kaloo jooga kooxihii kale ee ka yimid wadamada Denmark, Finland, Switzerland, Sweden iyo gobolada wadankani Holland oo ayagu kooxahoodii haray balse iminka ah taageerayaal labada dhan kala taageeraya waxaa harsan hadda waa 3 daqiiqo iyo 45 daqiiqo ay maraysaa hal iyo eber ayaa waxa ku hogaaminaysa kooxda Riwak ciyaartu wali wax iskama bedelin weerarka hadda waxaa wada kooxda Den Haag iyaga ayaa weeraraya wali way wadaan kooxda kalena waa difaacayaan waad arkaysaa ninba ninka kale ma dhaafi karo kubaddii marka koox Riwak iyo Den Haag waa isku dheg yihiin ciyaartan weli waxaa harsan 3 daqiiqo iyo 25 second weli lama garanayo meelay ku dhammaan doonto laakiin waxaan kuu sheegayaa qaybta dambe ciyaartu inay sii kullaan doonto oo labada kooxba Riwakna halka gool iskuma hadlayn doonto nimankaana halka gool waa inay soo gudaan waa ku khasban yihiin arrintaas ayaa jirta wax yaraa harsan mar dhow ciyaarta qaybta hore way dhammaanaysaa 30 second ayaa noo hartay kubaddii waxaa dhiibanaysa Den Haag ciyaartan 10 daqiiqo hadda la ciyaaray wax fursada oo la abuuray ma jirto hal fursada la sameeyey fursaddii gool ayaa lagu dhaliyey Riwakana goosha ku heshay hadda waxaan sugaynaa qaybta dambe maxaa isbedeli doona tababarayaashuna waxay la hadli doonaan ciyaartooydooda qaladaadka jira iyo sidii maaragtay ay jaanis ku heli lahaayeen ayay u sheegi doonaan si ay la tahay marka ciyaarta qaybta dambe fursado badan inay imaadaana laga yaabaa waxaa dhici karta in Riwak dhaliso waxaa dhici karta in laga dhaliyo la bareejeeyo hadda goosha ayaa la weeraray goolhaye ninja ayaa madaxa ku bixiyey kubad khatar ahayd 20 second wax ka yar baa haray ciyaartu hadda way dhammaatay gool waxaa dhaliyey waa loo labeeyey ciyaartuna waa dhammaatay qaybta hore gool Riwak ayaa goolkii labaad dhalisay Riwak ayaa goolkii labaad dhaliyey Kambiyana waay markii kubadda ay dhammaan rabtay ayaa goolka laga dhaliyey 2 eber xaaladdu way ku xun tahay kooxda Den Haag xaaladdu way ku xun tahay Den Haag waxaa moodaa inay iska quusatay caliyaa loo dhiibay isma waalayaan kooxda Riwak ayaa kubaddii celceshanaysa wax culaysa ma saarna kooxdii Riwak ayaa saad arkaysa sacabkaas iyagu dhacaya ayagaa weeraraya goolkii saddexaad oo lagu rajo tiray kooxda Den Haag waa dhashay lambar 9 ayaa dhaliyey ciyaarta way soo afjarantay 3 daqiiqo iyo bara hartay waxaanay kooxda Den Haag waa laga badiyay anigu saan arkayno marka sacabkana wuxuu dhacayaa kooxda Riwak ayaga ayaana ilaa iyo hadda oo 3 daqiiqo ay ka harsan tahay iyaga ayaa ka guulaystay waxaan sugno waa sida ciyaartu ku gabagabowday kubaddii ayaa la sugayaa
dadkii ayaa soo buux dhaafiyey bannaanka qaar ka yimaaday waxaa laga codsanaya inay fariistaan dadkii ciyaartuna waxay tahay iminka mid dhanka Raywag u jaleecda maadaama 3-0 ay marayso ayna harsan tahay 1 daqiiqo iyo 10 sekin abuna waa saadaalishani labadeeni saadaalba wal gool ay heleen kooxda goolka sharafta ay abuna danaaq qolay goolka sharaftay soo xisteen 1 daqiiqo hartay 2 gool oo kale waa laga rabaa marka ma soo gudi karaan ciyaartan sida arkayno halka daqiiqo harsan waxa badiyay Raysbeck koobkaas finalkii ciyaartii hirda 2014 sal footballka hadda waxa ku guuleystay saan arkayno kooxda Raysbeck kooxda danaaqna kaalinta labaad ay gashay inkastoo ay si fiican u ciyaareen laakiin kubadda saan u sheegnay waaye kubaddu waa xisaabtan fursadaha oo laga faa'iideysto in la xisaabtamo in macnaha marka hore qaybta hore way fiicnaayeen hal gool oo degdeg ah ka dhashay way difaaceen intii tabartooda ahayd ciyaartii oo ka harsan tahay 5 sekin ayaa qaybta hore laga dhaliyay goolkii labaad qaybtii saddexaadna ciyaartu sidaasay ahayd marka laakiin kooxdii Raysbeck oo iyagu ah koox aad way orog u ah ayaa maaragtay ka faa'iideystay ciyaartuna hadda waxa haray waaba 1 sekin waaba dhamaatayba marka mar dhow siiriga la yeerinaya waa 3 ciyaar ay ciyaartan ku dhamaatay marka kubadda waa baxday ciyaartu waa dhamaatay ciyaartii hirda futsal tournament 2014 waxaa ku guuleystay kooxda Raysbeck waxay ka guuleysteen danaaq 3-1 kooxdaas ayaa ah kooxda championska ilaa iyo hadduu ilaahay sanadka dambe December waqtigan oo kale markii la isku soo noqdo horyaalka waxaa haysan doona kooxda Raysbeck ayaga ayaana maaragtay koobka halkan keeni doona sanadka dambe hadduu ilaahay idmo dardaarmeen lix iyo tobankoodii baa isku dhacay 8 baa hartay 4 baa qorta soo gashay 2 hartay waa la isgalay guushina ya qala bay raacdaa waa the teamka of the champions of this year oo waliba 10 years anniversary ku soo aadantay waa kooxda maxay aad magac Raysbeck on the stage please Raysbeck هيا درنك عادي هذا وفرح زين هاي وركي سيب سنك المحارج جونس قولوا متى على متى يا عادي عادي صدق ما شاء الله ولا فضل يا حبيبي تعال how you feel today what how you feel I'm feeling great sure about a beautiful turn ما شاء الله and what the champions they've done well they've worked hard yes listen to this wuxuu yiri mugdigu listen to this mugdigu wuxuu wataa baqdin waa in mugdiga laga saaraa Muqdisho si ay baqdintu u dhamaato waa former mayor of Muqdisho Maxamed Nuur Tarsan in the house sacabka waa ninkii Muqdisho maqsiga ka saaray waa ninkii dhiirigeliyay dhalinyarada Soomaaliyeed waa nin waqtigiisa u hura inuu garab istaago sportska waa ninka guddoonsiinaya awardka ugu weyn iyo teamka ugu weyn haye waxaad u dabaaldegaysiin munaasabad aad u qurux badan ay ku mahadsan tahay hay'adda hirdo inay qabanqaabiso intaanoo dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed inay isu keento inay isbartaan in ay waxa ka dhaxeeya ay ogaadaan qaar ka yimid Finland qaar ka yimid Sweden qaar ka yimid Denmark qaar ka yimid UK qaar ka yimid Holland Switzerland Jarmalka naas oo dhan ee kala luqad ah markaad u fiirisid Yurub haddana luqada idin midaysa waa luqadii Soomaaliyeed walaalaha tihiin isku dal baad tihiin isku dad baad tihiin isku ummad baad tihiin
waxaa la rabaa marka arrintan inaad xoojisiin hay-addan aad ku taageertiin sanadka ka dambana sanadkan sidaan ka wanaagsan in laga sii dhigo adinkuna inaad isbaratiin ha kala cararina markay ciyaartu dhammaato isbarta is ogaada adresyada kala qaata isla xiriira facebook ku wada xiriira muxuu ahaa twitter ku wada xiriira barasho wanaagsan aad baad u mahadsantihiin hay-adda idin qabanqaabisay soomaalinimadu ha xoogaysato midnimada soomaaliyeed ha xoogaysato calanka buluugga ha noolaado calanka buluugga ha noolaado haye sawirka sawirka sawir koobka waxa u qaadaya waa tababaraha waa cali iyo fargacal aad iyo aad sawirka ha oh put your hands together the winning team the 2014 the champions. First of all, I want to thank the Moroccan team for coming all the way from Belgium. Have a safe trip back. Okay. Furthermore, I want to thank Den Haag for the second place. It was a nice tournament, the 10th edition, very good, mashallah. And I want to close by saying Saabka, Saabka. I like this guy. Saabka, Saabka. Well done, winning team. Like I thought, kooxda waxay ku raadinaysaa bal inay ku qaadato dhowr milyan maxaa arinta ka jira waa jira koox badan oo soo dalbaday wadankeeda Canada waaya Jose Maria iska dhigtay waaya baad uma santahay waxaan rabaa inaan in yar oo sameeyo aan u sameeyay maanta xafladda quruxda badan ciyaaraha isku dhacay ee hirda ay soo sameysay horta intaas oo dhan waxa madax u ahayd wadada soo halkantay waa dadka laba mid ah waa Faaduma Haboon sacabka siiya horta in yar baan u soo tiriyay maanta dareenkayga siduu ahaay sida maanta waxaan idhi waa maalin wacan inta meesha joogta mudane iyo haweenkuba ay maqsuudayaan oo muruqay ku faaraan dhalinteena muuqale sacab meel saraasiya Soomaaliya mudnaanta leh meel markasta aan u hadlaynaa oo martidaan inoo timi soo mara albaab furan mashxarad iyo sacabkana ku soo dhaweeya maasha Allah dhaha hablaheena muuqale ku mitiday sportiga iyo inta wiilmaanka iyo maskaxdooda geliyo muruq sharaf leh ku dheelay madashu waa Amsterdam maamulku waa maamulka hirda iska leh oo Marwa Faaduma mudan muusikan la tumayana heesahan marnaba gooyn maanta waayaha cusub iska leh hambaliya idin leeyahay horumar weyna gaara habla iyo halyayaba halkiina ka sii wada hareeraha kale ha eegina hormuud bulsho weyn ahaado walaalays huba ahaado hagaag oo abidkiin ha hakanina Faadumoy adigana waxaan ku yeeray hooyada hirda halka soo gaarsiisay isu keentay maanta intana qof intana dada waxaan idhi Faadumo cudoonay filki dumar u wacanay farxadaada abuurtaa maanta loo fadhinayaa furihii ciyaaraha fiiro gaara adiga leh filsantii haweenay hirta way fogaatee dhalinta ku faantee ha firdhinin amidkeed oo mahadsantiin